horta runtii waxa wanaagsan maanta waan maqlayay wasiirka arinta ka hadlaya waxa kale oo la soconay in ay dawladdu ay runtii ay u yeedhay safiirka inoo jooga wadanka Kenya sidoo kale safiirka dalka Kenya halkan jooga ay u sheegtay inuu dalkiisa ku laabto la tashi waxaan jecelahay horta inaan cadeeyo xiriirkeena ama siyaasadda dalka arrimaha dibadda waxa wanaagsan inay noqoto siyaasad sugan oo thaabit ah inaga dalkeena waxa saldhig u ah sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimadeeda in la ilaaliyo taasi waa mid aan gorgortan gali karin waxaan laakiin rabaa inaan ku sheego hadda ka hor 2016kii doorashooyinkii dhacay oo aniguna waqtiga golihii murashaxiinta isbedel doonka aan afayaan u ahaa campaign-ka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahaa dawladda Itoobiya inay cadow tahay oo ay faragelin ku hayso dalka oo aan qarsoonayn isla markii uu madaxweynuhu xukunka dalka la wareegay oo muxuu ahaa siyaasadda dalka uu hogaaminayay waxaynu ogsoonahay in muwaadinka Cabdikariin Qalbi Dhagax oo halgamaa Soomaaliyeed gacanta loo geliyay Itoobiya oo ay markaa xukumayeen hadda tikreega wasiirku uu ka hadlayo sidoo kale waxaynu ogsoonahay in ururka wadaniga muxuu ahaa xaqdirka oo NLF dawladdu markaa ay ku tilmaantay inuu yahay urur argagixiso arintaasi oo ku salaysnayd siyaasadda markaa uu dawladdu hogaaminay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa haddana aan ka laabanin oo aan ka cudur daaran arintaasi aan sheegin xataa ururkaasi inaan argagixiso ahayn iyagoo oo dawladda uu hadda prime ministerka uu ka yahay Abiy ay sii daayeen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ay ururkaasina ay u ogolaadeen inuu yahay urur wadaniga oo dalka Itoobiya ka tirsan waxaan fahmi karnaa hadda oo waqtigan aynu joogno oo laba siyaasadeed muxuu doorasho lagu jiro in dalka Kenya xiriirka loo gooyo laguna eedeeyo inay faragelin ku hayaan muxuu dalka Soomaaliya waxaan u fahmi karnaa inay qayb ka tahay ololaha doorasho ee siyaasadeed ee madaxweynuhu hogaaminayo waxa kale oo anagu aan u fahmaynaa inay tensionka indhaha dadka Soomaaliyeed in laga jeediyo xaqiiqada dhabta ah ee ku salaysan dalkan inaan la rabin inay ka dhacdo doorasho hufan xalaal ah xor ah si dhab ah loogu tartamo taasi aad moodaa inay muuqato waa tahay waxa la idinku eedeynaya waxa weeye in gudaha Kenya aad ku soo shirteen oo gudaha Kenya la idinka soo abaabulay arinta maxaa ka leedahay horta annaga dalka Kenya waa dal inoo furan waa dal ganacsi naga dhaxeeyo waa dal xiriir naga dhaxeeyo waa dal ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed oo ganacsato aad u fara badan arday badan baa wax ka dhigata qoysas badan oo dibadda ka soo guuray baa degan siyaasiyiinta halkan ku nool muxuu ahaa dadka qaraabadooda qaarkood baa degan annagu waxaan aaminsanahay hadda arintaasi inay iska tahay eedayn aan macno badan lahayn ma jirto shirar gaar ah oo hadda musharaxiintu ay halkaasi ay ku wada qaateen arintaasi waa been abuur way jirtay inay madaxda qaarkood Kenya ay ka yimaadeen madaxda qaarkoodna ay meelo kale ka yimaadeen qaarna ay wadanka gudihiisa joogeen marka eedaynta waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa hal diidaysa geelay ku xoqoto ma weydo falaari gilgilasho kaaga ma go'do madaxweyne waxa laga filayaa dalkan in la doorasho gaarsiiso dhawaan waxaad ku shirteen hotel ku yaala Muqdisho qodobada aad soo saarteen waxa kamid ahaa in gobolka Gedo laga saaro ciidamada dawladda arintaas oo uma muuqato in aad markaas dhinac Kenya kala safantiin oo dawladdiini aad xagal daacinaysan annagu ciidamada Soomaaliyeed ee ilaalinaya xuduudaha iyo qarannimada Soomaaliya waa ciidamo difaacaya dalka oo haba yaraatay sharaftooda iyo qiimahooda aan meel lagaga dhici karin oo aan la siyaasadeyn karin annagu waxaan soo jeedinay in maamulka Jubbaland loo madax baneeyo inuu ku qabto doorashada deegaan doorashadiisa oo Gedo ay kamid tahay oo Kismaayo ay kamid tahay taasi in laga dhigo inaanu annagu ciidamada durayno waa wax xaasha lillahi aan naga suurta gali karin weeye waxaan ku baaqaynaa dawlad kasta oo xubinka muxuu ahaa dawladda federaalka Soomaaliya waa in loo madax baneeyaa inay doorashadooda si xor ah ay ku qabtaan waa tahay arinta doorashada haddaynu u nimaadno doorashada khilaaf baa ka taagan waxaad qaadacdeen guddigii oo hal kala diro ayaad tiraahdeen haatan maxay idinkaga qorshaysan arinta doorashada walaalo horta guddiga sababta aan leenahay in hal kala diro waxa weeye guddiyada waa in lagu magacaabo si waafaqsan sharciga iyo shuruucda dalka waa inaan ka mid noqonin shaqaalaha dawladda diblomaasiyiinta iyo ciidamada qaybahooda kala duwan taasi macnaheedu ma aha dadkaasi inaanu iyaga wax u dhimayno waxaan u sheegaynaa kaliya hanaanka doorasho waa inuu noqdaa hanaan dhexdhexaada oo daah furan oo loo dhan yahay arintaasina runtii waa arinta aanu doonayno in arrimaha la saxo wax laga qabto